fasalo ay ardaydu fadhiyaan kuraas istaba yaalla macallinkuna uu hor taagan yahay isagoo cashar bixinaya. Waxay ahayd habka waxbarasho oo muddo dheer la isticmaalayo ilaa hadda. Waqtigu wuu isbedelayaa, waxaana jira habab cusub oo waxbarasho. Macallin kastana looga baahan yahay in uu wax u dhigo, taasoo ardayda ka dhigaysa kuwo firfircoon, isla markaana macallinka ka caawiya inuu noqdo haga fiican. Aan bal eegno qaar ka mid ah hababka waxbarasho. Habka koowaad waa flipped classroom. Ardayga wuxuu casharka kusoo qaadanayaa guriga isaga oo isticmaalaya online resources sida fiidiyoyo diyaarsan. Intaa kadib, fasalka gudihiisana waxaa lagu qabtaa doodo, problem solving iyo howlo kooxeedyo. Tani waxay ardayga siinaysaa fursad dheeri ah oo uu wax ku xasuusan karo, isla markaana uu fasalka ku yeesho waqti tayo leh oo kula shaqeeyo macallinka iyo ardaydiisaba. Habka labaad waa hands-on learning. Qiyaas fasal biology ah oo ardaygu gacanta ka sameynayo tijaabooyin DNA ah halkii ay ka daawan lahaayeen fiidiyoyo oo keliya. Tani ardayga waxay ka caawinaysaa inuu si qoto dheer casharka u fahmo halkii uu dhegeyste ka ahaan lahaa. Habka saddexaad waa blended learning. Bal qiyaas arday qaata cashar xisaaba oo online ah guriga dhexdiisa, kadibna fasalka yimaada si uu u dhigto haddana casharkii uu ku soo practice gareeyay xaafadda. Ugu yaraan si fiican buu ula soconaya klaaska. Taasi waa hab isku daraya barashada online-ka ah iyo howlaha fasalka si ardaygu wax ugu barto si firfircoon. Ugu dambayn, macallinka adeegsada habab dhigis kala duwan waxa uu ardayga ka caawin karaa inuu noqdo arday hal abuur leh, isla markaana si buuxda ugu diyaar ah mustaqbalkiisa.